samafale maxamed axmed bidaanshe waa mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala ee magaalada laascaanood waana mulkiilaha warbaahinta bidhaan media inta badan maxamed axmed bidaanshe waxa uu ka shaqeeyaa howlaha samafalka isagoo door weyn ka qaata samata bixinta dadka tabaalaysan warbixintan ayaan idinka diyaarinay wariye maxamed axmed bidaanshe marka horeysa halkan waxa isugu keenay waa dareen bid'aadnimo intaasoo xaafadood baan ka kala nimi intaasoo qof waxa isugu keenay waa dareen dunidan aynu ku noolnahay walaal waan ognahay ilaahuma dhameystirin nimcada iyo nolosha duniyadan ilaahay balaariya alxamdulillaah rabbil caalamiin ugu horeyntii ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo mahad koowaad iska leh waxaanu mar kale iyo maalin kale la joognaa muuqaal aanu dhawaan baraha bulshada ku baahinay oo ku saabsanaa qisada labada ruux ee Saaraha iyo Saara Xasan Cilmi dunidan aynu ku noolnahay ilaahuma dhameystirin dad ilaa dooyo nimcada iyo nolosha balse nimco walba nusqaanteeda ay leedahay 40 sano maxamed xasan cilmi xanuunka dhimirka uu la nool yahay dareenkii miskiinkiyo waa dabuubtii وصحفي samafala ah waa halabuur suugaantiisa inta badan ku cabira baahida kuwa jilicsan iyo masiibooyinka u baahan in gurmad laga sameeyo maxamed axmed bidaanshe asaasaha ahna mulkiilaha warbaahinta bidhaan media waa wariye samafala oo ka qayb qaata gurmashada iyo caawinta dadka dhibaataysan isagoo soo gudbiya fariimo la xidhiidha dhibaatooyinka nololeed ee haysta dadka danyarta ah maxamed xasan cilmi waxa uu 40 sano la nool yahay xanuunka dhimirka waxaana gacanta ku haysta walaashii hooyo Saara Axmed Cilmi oo ah qof danyar ah oo quutul daruuriga ka raadisa caano yar oo ay suuqa ku iibiso samafale maxamed axmed bidaanshe waxa uu ku galay xaaladda dhabta ah ee maxamed xasan iyo hooyada gacanta ku haysa waxaanu bulshada u soo bandhigay duruufaha nololeed ee ku gadaaman qoyskan wixii ka dambeeyay dhalinyaronimadiisii waxa uu ahaa mid la saaxiiba xanuunka dhimirka ama waalida waqti xaadirkan qof walba oo arka muuqaalkiisa waxa uu noqonayaa mid ku reeba naxdin iyo argagax maadaama walaashii Saara Xasan Cilmi oo qootolyoonkiisa ka raadiso caana ay ku iibiso suuqyada Laascaanood waxayna mararka qaar kala kulantaa dhibanahan markay wax siinayso ama ay rabto inay guriga ka hagaajiso gacanka hadal taasoo keentay in dhibanahan xanuun kala jiifa silsilad lagaga jabiyo ama lagaga xidho afarta adin si ay uga badbaasatay nafteeda dunidan aynu ku noolnahay ilaahuma dhameystirin dad ilaa dooyo nimcada iyo nolosha balse nimco walba nusqaanteeda ay leedahay 40 sano maxamed xasan cilmi xanuunka dhimirka uu la nool yahay hooyo Saara Xasan Cilmi oo ah walaashii ayaa warbixin guud inooga siin doonta bal 40 sano waayihii iyo hagadaamooyin kala duwan ay ka soo martay iyo sidoo kale xanuunka dhimirka xilligu haleelay iyo dhibaatooyinka kala duwan ay ka soo martay hooyo anigoo ah Saara Xasan Cilmi oo ka hadlaya duruufta iyo dhibta iga haysata ninka waalan ee halka ku xidhan aad aragteen waxaan ka hadlayaa hooyo dhibaatooyinka faraha badan aan ku qabo ee 40 sano waala maalintu dhalinyaro ahaa oo xoogiisa ugu fiicnaan maqaadiirtu haleeshay ragii qaban lahaa iyo wiilasha qaban lahaa ee walaalihiina qadar iska heshay waxa weeyaan aan dhibaatooyin fara badan dilmo marada hadaan xijaabka igu ceejirayo dhibaato aad iyo aad u fara badan duruufteedu aad iyo aad u adkaatay dhaqtar aanan geynin raash aanan geynin meel kale aanan geynin ay igu kaliftay duruufta iyo waqti hagaag hooyo Saara Xasan Cilmi waxay ka sheekeynaysaa duruufta dhabta ah maxamed xasan cilmi iyo waayaha kala duwan ay ka soo martay waa duun kale iyo xaalad kale inta noolnahay dunida ayaa wax la isku yahay hooyo Saara Xasan Cilmi runtii say ka dhawaajisayba waxay gelinka hore iyo gelinka dambe iyo mararka qaar kood ugu shaqo tagtaa si ay nolol maalmeedkiisa uga soo saarto dhibanahan 40 sano nool xanuunka dhimirka hooyo Saara Xasan Cilmi koob caana ayay suuqa ama bartanka magaalada Laascaanood ku iibisaa iyadoo aysan ka fakareen ma laga iibsan doona amise ma ka soo saari doontaa waxyaabaha halkan aad ku qodan doonto waxaa xusid mudan in hooyo Saara ay sheegtay in aanay jirin wax qaraabo dhow ah oo ka gacan siiya la tacaalada dhibanahan u xirxiran xanuunka 40 sano jirsaday saan wax badan ugu ogaana hadaba xaaladda nololeed ee labada ruux ayaanu ku booqanay hoyga ay ka degan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool
markaad gashid gudaha hoygaasi waxaad la kulmaysaa amaba aad arkaysaa nolosha adag ay ku nool yihiin labadaasi ruux. xasan cilmi mar walba waa sidan waa duuni kale iyo xaalad kale intaynu noolnahayna dunida ayaa wax laisugu yahay walaal wehel iyo waxtarba laisugu yahay waxaan rabnaa hooyo Saare Xasan Cilmi inaynu si guud ugu kacno oo muuqaalkan haddii aynu meel kala gaarsiin karna gaarsiino. dad muxsiniin ah oo ku nool daafaha dunida ayaa ka jawaabay fariintan Maxamed Axmed Bidhaashe waxaanay ku soo hagaajiyeen lacaga caawimo ah oo ay ugu deeqeen Maxamed Xasan Cilmi unka kuwada nool ilmahaagi weeyaan adduunyadan ilaahay balaariyay alxamdulillaah rabbil caalamiin ugu horeyntii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo mahad koowaad iska leh waxaanu mar kale iyo maalin kale la joognaa muuqaal aanu dhowaan baraha bulshada ku baahinay oo ku saabsanaa qisada labada ruux Saare hooyo Saare Xasan Cilmi iyo sidoo kale walaalkeed Maxamed Xasan Cilmi oo muddo ku siman 40 sano hore soo sheegnay xanuunsanayay mar kale ayaan maanta soo booqanay booqashadeedu maanta tii hore waa ka duwan tahay waa waji kale oo farxad leh waxaan wadnaa deeqo kala duwan oo dad Soomaaliyeed kala duwan naga soo gaaray lacagtan halkan maanta ku wareejinayna waxa weeye 1900 oo dollar oo dadyo kala duwan oo muxsiniin oo kala jooga daafaha dunida ay soo kala direen groupka ugu horeeya oo runtii aan halkan aad ugu mahad celinayo waxa weeye Sureer oo runtii iyaduna dadaal badan u gashay sida ay runtii ay maamada xanuunsan muuqaalka ugu soo gudbinay dhibaatada iyo intii ay ka soo qaaday oo la dareemi lahayd Saare Cilmi groupkeedu waxay soo ururiyeen $450 oo ay soo kala bixiyeen Ustaad Cabsalaan Yaasiin Khadra Caasha iyo Sureer oo ahay laf dhabar u ahayd in lacagtaas ay soo ururiso dhexda u xidhatay inay soo qaado sidoo kale lacag $600 oo iyaguna iska soo ururiyeen waa group dhalinyaro ah oo iyaguna dhexda u xidhay mar kale siday qoyskaasi iyaguna uga qayb qaadan lahaayeen hawshaasi una baahin lahaayeen bal noola qaybsan lahaayeen dareenka xaaladda aanu soo baahinay 12 bisha 2 2021 groupkan isaguna waxaa horkacaya laba qof oo runtii aan halkan aad iyo aad uga mahad celinayno oo Ustaad Cabsalaan uu kamid yahay iyo Axmed Garab Yare iyaguna khayr Allah siiye deeqdan waxay ku leeyihiin $600 iyagoo lacag kala duwan oo maalmaha soo socda iyaguna wareejin doonaan ay soo direen $600 runtii iyaguna waxay ka soo ururiyeen waa Axmed Garab Yare Ustaad Cabsalaan Injineer Cabdiraxmaan Axmed Garab Yare iyo Umar Abdi Xuseen iyaguna $600 weeye marka waxa isku noqonaysaa waa $150 halkaas xisaabtaasi inta kale runtii xisaabaha kalena waxay ahaayeen xisaabihii dhadhawaaya lagu soo diray mobilka maamada khayr Allah siiye oo dadyo kala duwan oo muxsiniin oo daafaha dunida iyo Soomaaliya meel walba kala jooga ay runtii soo direen muuqaalkan saan horeba soo sheegnay waxaan baahinay 12 bisha 2 2021 kaasoo ku saabsanaa xanuun iyo dareeno kala duwan oo dadka ku sababeynayay inay kala soo qayb qaataan aad iyo aad baad mahadsantiin Sheekh Jaac Yaasiin ayaan ku soo dhaweynaya suusna kelmadiisa u dhaho kadib ayaa maamada u gudbinaa waa mahadsantiin dadkan xanuunsanaya oo dan yarta ah dadka walaalaha ah oo ka qayb qaatay inay caawiyaan dadkan dan yarta ah waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo maalkiina iyo awlaadiina iyo umrigiina Ilaahay idin barakeeyo meeshaad ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay ha idin ku bedelo Ilaahay baahiyihiina iyo danihiina haddaboolo idinkana sida aad u caawiseen dadkan ehelka ah oo walaalaheen ah oo duruuftooda la soo gudbiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaasan idin weydiinayna waxaan u mahad celinayaa wariye bidhaanshe oo dadaalkan qabtay iskuna dayay inuu la xiriiro dadweynaha bulshada caalamka jooga soo gudbiyo baahida dadkan dan yarta ah oo aan la ogeyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagana ha barakeeyo hooyada aan baawar hayn ilmada buuxisay dhulka waayeelka badbaadin raba waxaad bixisaa ka badan bulshooy
ayaan wareeya bidhaan oo in badan ii rafaaday oo in badan maxay tahay maqnaa oo in badan hawsheeda galay oo in badan maxay tahay ila soo xaaladahaygo dhan oo idiin soo gudbiyay oo aad qaabisheen ilaaha baa mahad leh intii naasba weydin mahad celinayaa dhammaantiin weydin mahad celinayaa khayr allah idin siiyo meeshaad iga soo saartaan sidaan horeba u yiri iyo meesha hooyaad iga soo saarteenba wax roon allah idin daba mari